habeen wanaagsan dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena daqiiqadaha wararka taariikhdu waa 12 Oktoobar sanadka 2023 Afrikada barina saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan idin hayo waxa kamid ah qazo oo cir iyo dhulba laga garaacayo duqeyntii u dambeysay waxa lala beegsaday dad barakacaya oo caruur da'yar ay ku jiraan maxkamad ku saabsan dhageysiga dil la geystay oo Muqdisho ka bilaabatay waxaan ay giniyo saxaw muwaadinkan waa isqabateen waan walaalka caafi ka rag waa isqabta waan la kala tagay waayuu yiri muuse wax kala soo bin gaarigii leew la wareegay qoriga la soo baxay muwaadinkii oo madaxa u dhuftay muuse biixi cabdi mar kale ayuu soo goodiyay oo wuxuu yiri xuduudda Soomaaliland waa la sugi doonaa maamulka Puntland oo aad ugu fadlan dheer inuu Soomaaliland dalbalaarsi dhul kaga qaato habeelaysan ah waxay ila tahay waa isrunahay Puntland inay Soomaaliland dhul ka qaadi karto iyo kale waa isrunahay war cusub oo ka soo yeeray wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya cirka ayuu isku shareeray mucaaradku waxay yiraahdeen haddii sida aan rabno wax loo qaban waayo annagana hawsheena dhinacayaan ka wadanaynaa waxa dhacday xisbiga sidaas ah lahaanshihiisii سعيد عبد الله دني وأن ملك سوقلين إنه شيء برر حسب قاعد عاي ددوينها ويري وحن قليا دور شق في عضة تاس أو أصل كده يعني وحبك كم تشرن مقالة وسيل واحد جاري عيدا عصب ودولة فدرال كأه آد بلوسو دويي يا طبعا عاو أن إذن هيو مجاجل الله يابله aan ku bilaabay qaza cir iyo dhulba way ka garaacaysaa Israa'iil dhimashadii ugu dambeysay waxa loo geystay dad barakacayay oo xuduudka magaalada Rafac ka gudbayay caruur da'yar ayaa ku jirtay dadkan u dambeeyay ee la laayay duqeyntu habeen iyo maalinba way socotaa looma meel dayayo oo meel walba way garaacayaan Israa'iil digniin bay hadda Israa'iil bixiso waxay tiri dhinaca waqooyiga magaaladaasi qaza laga guuro balse meel lagu badbaadayaba qazo oo dhan ma jirto koonfur waqooyi bari iyo galbeedba dhimashada reer Falastiin 2200 ayay kor u dhaafaysaa dunida oo dhan shacabka way mudaharaadayaan inkastoo dawladaha lagu kala qaybsan yahay oo reer galbeed sidii caadada u ahayd ay Israa'iil taageereen haddana magaalooyin fara badan oo dunida ku yaala ayaa shacabka reer Falastiin taageero iyo garab istaagba u muujiyay banaanbaxyadu Australia Aasiya Yurub iyo Ameerikaba way ka dhacayaan mashaqadan hadda socota waxa lagu tilmaamay tii ugu darneed oo bariga dhexe ka dhacda qazana waxay noqotay waxa ka socda in lagu tilmaamo aafo iyo halaag aan horay loo arkin wahagaag khilaafka Puntland cirka ayuu isku sii shareeray kadib xalay markii Siciidani uu mar kale sheegay in doorasho qof iyo cod uu qabanayo mucaaradku iyaguna way hadleen oo waxay yiraahdeen haddii doorashadii 66 qabiilka lagu soo xuli jiray loo noqon waayo annagana waxaan rabnaa yaan gooni u qabsanaynaa waxa xisbiga si toos ah u boobay xubno ugu horeeyo madaxweynaha dawladda Puntland waxaana cadeyn u ah maxkamadda sare markaanu dacwada geynay waxay soo saartay qoraal ay leedahay xubinta lagu murasay hal hakiin waa bariyay bale wax waa bariyay sacba lagu madada bale tibak oo muddadii 4 sano ahayd xisbiyada ay soo waday ururada la soo shaqeynaysay shahaadadii u dambeysay ay bixinaysay waa taas halkaas dadweyne waad ka aragtaa tiimkii tibak oo gudoomiyay balad gudoomiyana sawirkiisa ku qabtay waad u jeedaan shahaadadii tibak ay bixisay waa tan shahaadadii tibakna waa taas xubinta uu gudoomiyaha soo magacaabo iyo gudoomiyaasha dhigiisa ah ayaa beeg noqon karta beeg ma noqon karto qof banaanka laga keenay iyo damac gaar ah midna beeg kama mid noqon karo halka waxaad ka arkaysaan madaxweynaha iyagu inuu u bareeray boob cad oo aan geed loogu soo gaban taas oo ku abuyus gareeyay maxkamad garsoorkii aan dacwada geysanay oo la dacwada ma gali kartaan xagee lagu arkay maxkamad sare oo inta qaraar soo saarta la yiraahdo xaq uma leeyahay inaad qaraar ka soo saartaan baarlamaanku yiraahdo halka waxa ku tusaysaa wadanku inuusan lahayn golo baarlamaan inuusan lahayn garsoor madax bannaan inuusan lahayn madaxweyne caadil ah ee dadka oo xisbiyada u cadaalad sameyn kara waxaad ogtihiin xisbiyadii muddada 3 sano iyo barka ololaha ku jiray maanta bannaanka inay jiraan xisbigii mideeye xisbigii horseed kii dhalinyarada kii shaqaalaha hadda ugu dambeeyay oo bannaanka u baxay wahagaag Muqdisho dacwad dhageysi ah oo dil la xiriirta ayaa ka bilaabatay
waa laba qof oo saaxiib ah oo isku qabtay gaari ay wada raaci rabeen dacwadan siday u dhacday كوتي واسفيرين هرت كوتي فيرك هرتي صارت باورا لسكو دجالي عبد البلاء مرحومك اللي باورك كوركيس أو تروس كوري فيديو يواحد كدو بناي أسيور لنا يركله أنا جيت هوستيز أو باورك قداش ماشى فدي مرك نين كان دراوالك أو جني واسو غاريو أدو سو جذا كجرو صباح غاري فيديو مكدو بكرتواي نين كان أو مرحومك ده وراني كلي ما هان غاري فيديو مكدو بكرت ما هان غاري دولة الله إداف هذه واحد ببوغام هرت هو شيء ماشى قبل عوت ولا سفير اللي كان وصباح أنا وتبدو كويس قادنا وإيمت لقط الدم بولي بمرة ويسقط كيدا معي فحنا جني وساعة ومواد كان واسقطتين وأنا ونالك عافي كده رجوا اسقط وانا لك التجاي ويوري مصوح كلا صوبين جاري اللي وري قرقي ولا صباحي مواد كيون ما ضحوا لفت موسى بيحي عبدي oo dhowr bilood aan war iyo wacaalba laga haynin ayaa maanta mar hadlay mar kale wuxuu ku celiyay digniintii uu awal jeedin jiray oo goodinna uu raaciyay wuxuu sheegay xuduudaha Soomaaliland in la sugi doono sidoo kale weerar afka ah ayuu Puntland ku qaaday cadawga qaranimada Soomaaliland ka dhantaalayana ka midowno waxa ila tahay isbacnusa dib u luqeeya si gaara cadawyada badan ee Soomaaliland waxa uu soo qaadanayaa maamulka Puntland oo aad u fadlan dheer inuu Soomaaliland dalbalaarsi dhul kaga qaato habbeeraysan ah waxay ila tahay way suranahay Puntland inay Soomaaliland dhul ka qaadi karto iyo kale way suranahay waxba tahay markaa u dhaaf maayo waxa la mid ah xildhibaanada qaar Kenya oo Kenya xildhibaan u ah siyaasiya oo wax la qaybsan 8 qurumood oo kala afa oo kala diina wax la wadaaga haddana dab ka dhex shidaya Somaliland gobol kamida ama degmo kamida aqriga caynkaasi ku aanu aqbali karno kana ergeyna kana wareegna maahe waxaan leeyahay waa cadow Somaliland halka kaga soo duulay dawladda Kenya oo wuxuu wanaagsan leeyahay halka lagu joogo safaaradii safiir waxa uu dowladda soo magacawday oo hadda baarlamaanka soo marayo oo ay ka joogaan in ku dhow 8,000 oo shaqaale oo dadka Soomaaliland ee Nairobi joogaan ilaa ciida ka badan yihiin wanaagii wadaadada wadaxayso waxaan u tilmaamaynaa suurtagal ma aha in xubnaha baarlamaanka iyo xilal qaran haya ay Soomaaliland dab ka dhexshadaan midna aqbali karama waxa la mid ah dawladaha jaarka ah to walba oo dadkeedu soo fargariyo Soomaaliland halka waxaan ku soo ururaya waxaan helaynaa waxaan horumaro markaynu labada qodob ee gudaheena iyo cadawga iska daafacno waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa dhammaan shacabka Soomaaliland ee aan xukuumadda xilwahay gudaha iyo dibadda joogeen iyo magaalada joogeen sida wadanimada ah ee nafurida ah ee naf iyo maal ciidamada qaranka u gaar taagayeen waan ku hambaleynayaa wahagaag mashaqadii 14 Oktoobar ka dhacday Muqdisho ee boqolaalka qof qarax lagu dilay ayaa maanta la xusay magaalada Muqdisho waxa ka curtay sidaad aragtaan kacdoon shacab oo bulshada hogaaminayaan dhalinyaradu waxa u horeysay baraaruga shacabka ayaa ah bulshada si ay uga qayb qaadan lahayd ciribtirka iyo baacsiga khawaarijta tani waxay muujinaysaa isku soo baxa maanta ay isku soo baxeen bulshada Soomaaliyeed ayagoo xusaayo u duceynaya walaalahoodii cadawga uu ku xasuuqay 14 Oktoobar goobtan aan taaganahay ee Zoobo in bulshadu ay hurdada ka toostay in bulshadu ay rabto nolol in bulshadu dawladnimo xoog leh ay u baahan tahay in bulshadu aysan u baahnayn wiil yar oo isqarxiya oo fikir ahaan la soo qalday bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in fikirkan qaldan in guryaheena ku jira wiilasheena ee laga qalday ee aaminsan inaan gaalada nahay annagoo wiilasha wahagaag deegaanka ciidciidka loo yaqaano muddo badanna shabaabku ay ku dagaalamayeen dhawaanna laga saaray ayaa hadda waxaa laga warramayaa taariikhdii deegaankaasi markii shabaab ay soo galeen iyo markii u dambeysay ee laga bixiyeyba halkanku muddo dheer soo jiitamayay 25 maalmood ayaan ku jirnay meeshan aan taagnayna
kowdii bishay soo galeen sagaaladii nimankaanu meesha soo galeen khawaariijta intii ka hore xoreeyaday annagana laatay 15 aan annaguna nimiday meeshaan aan dagaal ku bilownay ilaa maanta aan joogno hadda ay ka baxeen meeshana halganku waa socday dagaal badan la galay dhimasho ka dhacday dhaawac baa ka dhacay intaasna waxa waaye waa lagu jiro maalin walba juqdaana la isku jiray aad u jeedin marka halkan fog oo muddo lagu rafaado ay marka ilaahay mahadiis hadda waxa waaye waa laga guuleystay waana ka cararnaa dam karata dagaalka shabaabka ka dhanka ayaan ku jirnay magaalada Wisil ciidan cusub ayay dawladda geysay aad baa loo soo dhaweeyay guubaabo iyo suugaanna waa loo raaciyay ciidankan markii la soo dhaweynayay maamulkeedii ayaa soo dhaweynaya waxaan leenahay maanta waa maanta ugu dambaysay nimankan warkood ciidamada mudug jooga meelo ka mid ah gaar ahaan furimaha dagaalka xoolo nool baa la siiyey oo dadka deegaanka ayaa ugu deeqaya naftii iyo maalkiiba waa isku darteen annaguna inta in la garab taaganahay inaan nafteenna iyo maalkeennaba aan ilaahay ka gadanno inta aan ka gaarno arigaasi wuxuu u badan yahay ari jar ah tiradiisana koraan ku sheegay waa in kaga mahadcelinaynaa marka sida aad difaac ugu dhabar adeegteen annagana gacantii u horreysana ma ahan gacantii u dambeysana ma noqon doono waa naloo fiirinayaa xeryaha difaaca maantii la yiraahdo inta dagaalka khawaariijtu socdo waa taagnaanaynaa maantii la yiraahdo waa sii dhimahayaana waa keenaynaa insha allahu tacaala waa hagaag caawa suugaantii waxaan idinkugu bedelnay mijaajilla aan inaba caadi ahayn ila daawada bismillaahi raxmaani raxiim haddii ay biin kadale wari cabdi إلا ما الهرب عيارسه وروح محوها مسكنا نكرسه محوها إلا ما الهرب صباح يقص فصل عدو مع الواحد كوري الحيوان قلت المام الأرض بانه احترام كتجن الله ودعم سده احترام حياة أروح حير والله إسك صباح حداد إسك صبح ويدور كل قصة والله أضل أنت خير بدح والله صباح صدق ويانا قرني سده وهم حيل باب قصدي يروح يحب بالربايات دي خلقتنا لا برني ودغيست وريادين 10 كيلو isku gudagaleena maanta waxaynu ka hadlaynaa hadii biidam kida leeyahay ninka la yiraahdo wax ka sheekeynayna ninka la yiraahdo Isaaq Newton baan ka sheekeynayna dhageysa maal anigu kuma jira maal waayo kuma jiro waa maxay miyaanad arday ahayn wax barnay miyaanad ahayn waayo maal midooni aanu ka sheekeeyo qof aan la joogin maal xam bay noqonaysaa ماي سادو حفانتي ما هادير ما سادو حفانتي هادير نينكني وين اجانبه بري هور دنتي حنا maaha waxaan ku sheegaynaa waa wanaag ninka gaalka wanaag bin ku sheegaynaa wax yaabo sameeyay wanaagsan baan sheegaynaa marka iska fadhiisa meesha haadeer idhigaysa maal waan ogahay inaad iga oranayso imka iska fadhiiso laakiin intaan maal yahay waxaan ka dalay macallimiintu inta kaliya weydiiyaan wax weyn bishii meeday istaag fadhiiso ma ka soo shaqaysay bax kaliya waa intaasu macallin waxaan doonayaa in yarna dhageysato dhageystaan doonayaa macallin dadkii ugu horeeyay adduunka ilbaxnimada soo gaarsiiyay ee wax u keenay waa dadka islaamka macna hadday khidad dagaal tahay hadday tu ganacsi tahay hadday wax kale tahayba 10 maadana loo dhigaa 10 ka maada kaliya tan kaliya islaam wax qabtina lagu ma daro gebigeedu waa Einstein waa Isaac Newton daqiiqadii wararka caawa intaas ay noo joogo waad ku mahadsantihiin daawashadiina tan iyo kulan dambe nabadgelyo faa'iidooyinka adeega ibs send money dirista lacagaha withdraw money qabixida lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ibs bay lacag bixinta ama dukaamaysiga
loans and savings amaahda iyo kaydka ebs global xawlaadaha ebs mastercard virtual mastercard banking service adeegyada bangiga ebs goor kasta iyo goob kasta macmiil weli hore ma u maqashay applicationka Banana Pay haddii aadan hore u maqal Banana Pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynayay nidaamka xawilaadda lacagaha haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa Banana Pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada mobilka gacanta sida Sad Sahal EFC Plus iyo M-Pesa Kenya waxaa sidoo kale ku diri kartaa adeega T+ bangiga Sombank iyo xawaaladda Tawakkal Express haddaba ka faa'iideyso Banana Pay oo ku sameysay qiimo dhibis balaadan oo ah 20% waxaana lagu adeegayaa qiimo jaban